بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وسلم walaalayaal assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh. sidaa la wada ogsan yahay, xarakada taalibaan ee afghanistan ka dagaalanta ayaa heshiis taariikhi ah la gashay dowladda mareykanka sabtida lasoo dhaafay. waxaa laga sugayay warbaahinta al-shabaab inay ka hadlaan dhacdadan muhiimka ah, laakiin way ka aamuseen. idaacadaha al-andalus iyo al-furqaan oo xarakada taabacsan warkaas kuma xusin barnaamijyadooda wararka. waxaa keliya ka hadlay heshiiskaas barta Somali Memo oo taageersan al-shabaab, laakiin sida caadadooda ay tahay waxay isku dayeen inay xaqiiqada bedelaan oo ay si kale u dhigaan si aan loo fahmin in fikrikooda iyo kan taalibaan ay kala duwan yihiin. qofka dhageysta idaacadaha al-shabaab ayaa og inay mar kasta ka hadlaan arrimaha taalibaan ku saabsan, maxaa yeelay al-qaacida oo ay bayco la galeen ayaa hoos imaaneyso xarakada taalibaan iyo ayagaba. laakiin heshiiskan kama hadlin sababtoo ah wuxuu cadeynayaa in taalibaan ay xiriirka ka jaraysa al-qaacida iyo faracyadeeda. heshiiskan sidoo kale wuxuu xaqiijinayaa in manhajka taalibaan iyo kan al-qaacida iyo al-shabaab aysan isku mid ahayn. taalibaan waa kooxda saddexaad ee jihaadiga ah oo xiriirka ka jaraysa al-qaacida. jamaacadaha ka horeeya waa daacish iyo jabhatu nusra. qoraalka Somali Memo ayaa cadeynaya in al-shabaab iyo kuwa taageersan ay marin habaabinayaan dhalinyarada muslimiinta oo ay been cad u sheegayaan si aysan xaqiiqada u fahmin. qoraalka Somali Memo waxaa ku qornaa sida tan: hogaanka imaarada islaamiga Afghanistan ayaa war rasmi ah kasoo saaray heshiiskii taariikhiga ahaa ee ay la galeen dowladda mareykanka ee duulaanka ku qaaday wadankaas waqti hadda laga joogo 19 sannadood ka hor. mawlawi hibatullaahi akhunzada oo ah amiirka imaarada islaamiga ayaa bayaan uu soo saaray ummadda islaamka gaar ahaan reer Afghanistan ugu hambaliyeeyay guusha weyn ee ay ka gaareen dagaalka jihaadka ah. taalibaan waxay sheegtay in mareykanka ay sanka dhulka ugu jiideen kuna qasbeen inuu saxiixo heshiis dhigaya in dhammaan ciidamadiisa uu kala baxo wadanka Afghanistan iyadoo wax tanaasul ah aysan sameynin mujaahidiinta. amiirulmu'miniin hibatullaahi akhunzada ayaa muslimiinta ugu bishaareeyay inuu dib usoo laaban doona nidaamkii islaamiga ahaa ee ku burburay duulaankii mareykanka sanadii 2001. shacabkeena la dulmiyey, rag iyo dumarba, waxaan niyada ugu dejinaynaa inay heli doonaan xuquuqdooda ayagoo ku hoos noolanayaan nidaam islaami caadil ah, ayuu yiri amiirka taalibaan. imaarada islaamiga ah waxay sheegtay in wadahadaladii ay la galeen mareykanka ay ahaayeen kuwa waafaqsan dawaabida sharciga ah, mana jirin wax tanaasul ah oo mujaahidiinta ka sameeyeen mabda-ooda islaamiga ah. amiirka taalibaan ayaa bayaanka uu soo saaray ku bogaadiyey shacabka reer Afghanistan inay dalkooda dib u dhistaan, ayna isku diyaariyaan sidii shareecada islaamiga la iskugu maamuli lahaa. mareykanka oo 19 sano ka hor iskibrinayay ayaa ku qasbanaaday inuu wadahadal la galo taalibaan
oo ku jiro liiska waxa loogu yeero argagixisada sida ku qoran heshiiska ciidamada Mareykanka ayaa Afghanistan uga baxaya 9 bilood ilaa 14 bilood waxaana joogsanaya duqeymihii Mareykanka ka geysanayay gobolada wadankaas. Intaas uu ku dhamaaday qoraalka Somali Memo. Haddaba aan fiirino haddii run tahay waxa lagu sheegay qoraalkan. Beenta ugu weyn oo ku jira qoraalkan waa sheegashadii in Taliban aysan wax tanaasul ah sameynin. qof aan caqli lahayn kaliya ayaa rumaysan kara hadalkaas. qofka waxgaradka ah wuxuu og yahay inaysan jirin heshiis aan labada dhinacba tanaasul sameyneynin. xataa nabiga sallallahu alayhi wasallam markuu heshiis la galayay Quraysh wuxuu tanaasul u sameeyay si loo gaaro nabadda. hadalkaas oo ah inaysan wax tanaasul sameynin amiirka Taliban ma dhihin, way ku been abuuranayaan. haddaba aan eegno waxyaabaha uu kaga hadlay amiirka Taliban fariintiisa. amiirka Taliban fariintiisa waxaa ka mid ahaa wadahadalada guuleystay ee lala yeesho Mareykanka waxay cadeynayaan in xalka loo heli karo dhammaan arrimaha u muuqda kuwa adag. guusha wadahadaladan waxay fariin uga soo dirayaan Imaarada Islaamiga dhammaan howlwadeenada gudaha inaan diyaar u nahay xal macquul ah oo cadaalad ah. kaaliya aan xal u helno dhibaatooyinkeena iyadoo la eegayo qiyamka diimeed iyo midka qaran ee dadkeena. hadalkaas wuxuu cadeynayaa in Taliban ay aaminsan yihiin in xal kale uu jira oo aan ahayn kan dagaalka waa wadahadalka. waxayna diyaar u yihiin inay la hadlaan xukuumadda Afghanistan iyo qeybaha kala duwan ee bulshada si loogu helo xal waara dhibaatooyinka taagan iyadoo la ilaalinaya diinta iyo qarannimada. qodobkaas wuxuu khilaafsan yahay manhajka al-shabaab oo si khaldan u aaminsan in xal aan dagaalka ahayn uusan jirin. yaa saxsan marka, Taliban mise al-shabaab? markii loo laabto sunnada nabiga sallallahu alayhi wasallam waxaa ku cad inuu heshiis la gelay Quraysh oo ahayd cadowga ugu weyn ee muslimiinta intaysan islaamin ka hor. sidoo kale nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu diyaar u ahaa inuu heshiis la galo qabiilka Ghatafan oo isbahaysiga ku jiray oo loo yaqaano al-Ahzab. taas waxay tusaysaa in shareecada ay ku boorinaysa wadahadalka si loo ilaaliyo dhiiga muslimiinta. laakiin al-shabaab waa koox hawadooda ku socdaan aan aragti dheer lahayn. saas darteed waxay diyaar u yihiin inay nolosha muslimiinta khatar geliyaan. meesha Taliban ay fahmeen in ilaalinta nolosha muslimiinta ay aada u muhiim tahay. hadalka amiirka Taliban waxaa ka mid ahaa Imaarada Islaamiga waxay aaminsan tahay sii wadida xiriirka laba geesoodka ah ee wanaagsan ee ka dhexeeya dunida iyo gaar ahaan wadamada gobolka oo ay ka go-an tahay mabda xiriirka wanaagsan ee derisnimo. halkan wuxuu cadeynayaa amiirka Taliban inay xiriir wanaagsan la rabaan wadamada dariska ah iyo kuwa caalamka mar haddii dagaalka joojiyaan oo ay ixtiraamaan madax banaanida dalka. meesha al-Qaacida iyo al-shabaab ay aaminsan yihiin in xiriirka keliya u dhexeeya ayaga iyo dowladaha aan muslimiinka ahayn uu yahay dagaal ilaa ay ayaga u hoggaansamaan. Taliban waa niman yaqaana shareecada, la socdana waaqica dunida, ma ahan sida al-shabaab oo aan shareecada aqoonin aanan la soconin waaqica dunida. amiirka Taliban wuxuu sidoo kale yiri cid kasta oo ka qayb qaadatay dagaalada ka dhanka ah Imaarada Islaamiga ama qof kasta oo aan taageersaneyn Imaarada Islaamiga waa la cafiyey, waana la cafiyey dhammaan ficilkii hore.
waxaanan u rajaynaynaa walaaltinimo, islaamnimo, midnimo qaran iyo nolol barwaaqo. arrintaas waxay muujinaysaa in taalibaan ay cafis u fidiyaan xukuumadda kaabuul iyo ciidankeeda iyo dhammaan siyaasiyiinta taalibaan kasoo horjeeda, iyadoon weli la bilaabin wadahadalada dhex maraya taalibaan iyo xukuumadda kaabuul. xukuumaddani aan iclaaminin inay toobad keeneen. taas waxay caddeynaysaa in taalibaan aysan gaalaysiineynin xukuumadda kaabul iyo ciidankeeda sidii al-shabaab ay qabaan. arrintaas caddeynaya waxaa ka mid ah heshiiska la saxiixay. waxaa ka mid ah in taalibaan ay sii daayaan 1,000 maxaabiis ee xukuumadda kaabul la shaqeeya. xukuumaddana ay 5,000 oo maxaabiis ee taalibaan ah ay sii deyso. haddii taalibaan ay aaminsan yihiin inay murtadiin yihiin, ma sii dayn lahayn maxaabiistaas. arrinta kale, heshiiska wuxuu dhigayaa in taalibaan iyo xukuumadda ay wadahadal galaan si ay u dhisaan xukuumad wadajir ah oo nidaamka islaamka ku salaysan. taasna suurtagal ma noqon karto haddii ay gaalaysiinayaan xukuumadda. inay wadahadal la galaan xukuumadda waa tanaasul, maxaa yeelay taalibaan ayaa xukumayay dalka markay mareykanka kusoo duuleen 2001. waxayna ku dheganaayeen inay ayaga yihiin xukuumadda sharciga ee afghanistan. hadda inay la fariistaan xukuumadda kaabul waa tanaasul aan shaki ku jirin. al-shabaabna way gaalaysiiyeen dowladda soomaaliya iyo ciidanka qaranka iyo siyaasiyiinta dalka. taas waxay caddeen u tahay in manhajka taalibaan iyo kan al-shabaab iskhilaafsan yihiin. arrimahaas oo dhan Somali Memo ayaa hadalka amiirka taalibaan iskaga indhatiray, maxaa yeelay waxay muujinayaan inaysan isku manhaj ahayn. haddaan u laabno qodobada heshiiska, waxaa laga fahmayaa in taalibaan ay xiriirka ka jirtay al-qaacida iyo al-shabaab. taasna waa tanaasulka ugu weyn ay sameeyeen. heshiiska wuxuu dhigayaa in taalibaan ma ogolaan doono in xubin ka mid ah xubnaheeda shakhsiyad kale ama kooxo ay ka mid yihiin al-qaacida ay u adeegsadaan ciidda afghanistan si ay ugu hanjabaan amniga mareykanka iyo xulafadiisa. taalibaan waxay u diraysaa fariin cad dadka khatarta ku ah amniga mareykanka iyo xulafadiisa inaysan boos ku lahayn afghanistan. wuxuu u sheegayaa xubnaha taalibaan inaysan la shaqaynin kooxo ama shakhsiyaad halis ku ah amniga mareykanka iyo xulafadiisa. taalibaan waxay ka hor istaagi doontaa koox ama shakhsi kasta oo reer afghanistan ah inay khatar geliyaan amniga mareykanka iyo xulafadiisa, kana hor istaagi doonta kooxdaas in lagu biiro, inay tababaraan iyo inay lacag aruurin sameeyaan. mana martigelin doonto iyadoo la raacayo ballanqaadyada heshiiskan. taalibaan waxaa ka go-an inay kula macaamilaan kuwa doonaya magangeliyo ama degenaanshaha afghanistan sida ku xusan sharciga socdaalka caalamiga ah iyo sida uu dhigayo heshiiskan, si aysan dad noocaas ah khatar u gelinin amniga mareykanka iyo xulafadiisa. taalibaan ma siin doonto fiisooyin, baasabooro, rukhsadaha safarka ama dokumentiyo kale oo sharci ah dad khatar ku ah amniga mareykanka iyo xulafadiisa si ay usoo galaan afghanistan. sida ku cad qodobadan, taalibaan ayaa ballanqaaday inay xiriirka ka jarayso dhammaan jamaacadka khatarta gelinayo mareykanka iyo yurub iyo wadamada carabta ee dhammaan xulafada u yihiin mareykanka. amiirka taalibaan wuxuu ku booriyey ciidankiisa inay ilaaliyaan heshiiskan oo aysan ka hor imaanin, maxaa yeelay waa heshiis shareecada waafaqsan. saas darteed qofka jebiya wuxuu noqon doonaa qof khiyaano iyo dambi gali, siduu yiri amiirka. xaqiiqada heshiiskan iyo hadalka amiirka taalibaan waa kan:
Somali Memo waxay qortay waa been abuur iyo marin habaabin. Dad badan aan garasho lahayn waxay aaminsan yihiin in warbaahinta al-shabaab taageersan ay run sheegaan, laakiin xaqiiqada way ka duwan tahay. Heshiiskan hadduu guul yahay, maxay uga aamuseen al-shabaab ayadoo looga bartay tebinta weerarada iyo qoraalada Taliban? Haddii ay saxsan yihiin Taliban waa inay taageeraan heshiiskan, haddii ay ku khaldan yihiinna hanoo sheegaan meesha ay kaga khaldameen. Al-shabaab waxaan kula talinayaa inay doqonnimada iska dhaafaan oo ay ku daydaan Taliban si loo joojiyo dagaalka oo loo ilaaliyo nolosha muslimiinta. Waxaan kula talinayaa inaysan rumaysanin warbaahinta al-shabaab. Qof walba al-shabaab yaqaana wuu og yahay inay been sheegayaan. Wabillahi tawfiiq. Alxamdulilaahi rabbil caalamiin. Zubair al-Muhaajir.